صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرامج كاني دروس رمضانية وحلقتني شن إلى لباتنات. حلقة وحنكو إيقدونا سيدو كلا ليلة القدر يا قيمة إسكالا ده. وعن هران كسو هذلني هبينك إسكا فضائشي سي قيمي سان كسو هذلني. هذا نسوق عن كال دونا هبينك إسكا meelaha uu rajada badan yahay in mudanta in laga raadiyo iyo sidoo kale calaamadaha lagu garto ayaan xalaqadan ku eegi doonaa. hase yeeshee waxaa muhiim in isweydiino habeenkan la laylatul qadriga xaguu ugu rajo badan yahay sidan xadiiska nabiga ku cad calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu rajo badan yahay in laga raadiyo 10ka dambe sida nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان. نبي عليه الصلاة والسلام كد دالة ودتكم محوا إن كد دالان إن لجر راديو طبعا كدم بشا بركة سنة رمضان. نبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا السجار اللي وجود دالة هبين هذا وتر كأه إن السجار اللي وجود دالة هبين هذا سؤال كوي لباتنك سدح لباتنك شن لباتنك 7 iyo 9 habeenada isdhaafka ee witerka ah waa habeenada loogu rajada badan yahay sida xadiiska nabiga laga fahmay calayhi salaatu wasalaam. saxaabigii ahaa Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu yaa wuxuu ku dhaaran jiray oo dhihi jiray habeenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay leelatul qadr uu ku jiro 27 waa saas uu dhihi jiray saxaabigaas uu ku dhaaran jiray. marka waxa soo dhan markay nusuus la isku soo celceliyo waxay nusanaysaa in laga baadi goobo 10ka ugu dambeeya bisha barakeysan Ramadaan gaar ahaan habeenada witerka in laga raadiyo. haddaba waa maxay calaamadaha lagu garto leelatul qadr wuxuu leeyahay calaamado lagu garto calaamadaas waxay isugu jiraan calaamadaha habeenka la xiriira iyo kuwa habeenka markuu idlaado kadib imanay. waxa kamid ah calaamadaha la xiriira habeenkaas waxa kamid ah in habeenkaas uu yahay habeen iftiinkiisu aad u farbaday yani habeen aad u iftiimay oo aad u nuur inuu habeenka isaga. waxa kamid habeenka isaga in uu yahay habeen aad iyo aad u degan oo muxuu ahaa wax sawaxan iyo sanjirino habeen uu degan aad u degan inuu yahay. waxa kamid sidoo kale qodobka saddexaad kamid calaamadaha lagu garto habeenka isaga cibaadada oo muxuu ahaa dhadhan ku yeelata habeenka isaga cibaadada inaanu ku caajisin in muxuu qofka cibaadada uu ku raaxaysto muxuu uu dareemo calaamadaha lagu garto kamid. waxa kale oo jira calaamad kamid calaamadaha lagu garto oo ah marka habeenka uu dhamaado oo waagu uu bariyo habeen maalintaas ayada marka qorax ay soo dhalanayso waxay soo baxaysaa ayada oo muxuu wax shucaac iyo wax muxuu falaara midnaba aan lahayn oo nadiif ay soo baxaysaa. taana waxay ku sanaysaa in habeenka isaga uu ahaa habeen laylatul qadri inuu ahay ku sanaysaa. haddaba waxa muhiim maxaa marka in la gudboon inaynu ka faa'iideysano ama aynu sameeyno habeenka isaga waxa muhiim inaynu badan salaadaha quraanka la akhriyo tasbiixda in muxuu adkaarti lagu dadaalo in baryada ilaahay lagu dadaalo. soo kale maxaa muhiim in lagu duceysto Aisha radhiyallahu anha ayaa nabiga noo weydiisay waxay rasuulka ilaahay habeenka isaga hadii aan waafaqo maxaan dhahayaa markaas nabiga wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni. ducadaas ayadana muxuu ahaa in lagu duceysto qofka muslimka uu ku duceysto ayaa mudan. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala naftayda iyo tiinaba waxaan u rajeynayaa insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenka isaga inuu waafajiyo kuwii ka faa'iideysta ilaahay nagu daro. wa jazaakumullahu khayr. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.